waxay leeyihiin naga raali noqo, cimaamada ayaan kugu tuurnay oo madaxa ayaan cimaamad iyo koofi kuu saarnay, sida dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeedba ah. Markii qof la raaligelinayo, cimaamad iyo koofi ayaa la isugu daraa oo madaxa ayaa loo saaraa oo waxaa la yidhaahdaa walaal naga raali noqo. Sidaa waxaa odhanaya haatan dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Somaliland ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho, iyagoo raaligelinaya gabadha TikTok caanka ka ah ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee lagu magacaabo Mrs. Wall. Waxa ay leeyihiin dhalinyaradan oo aad u badnaa isla mar ahaantaana Muqdisho ku sugnaa, mar ay xaflad u qabteen Mrs. Wall oo laga soo haraantiyey magaalada Hargeysa ee Somaliland, ayaa waxa ay cimaamada ku tuureen gabadhan, iyaga oo sheegay in loo baahan yahay in la raaligaleeyo gabadhan, isla mar ahaantaana Muuse Biixi uu godobka galay. Muuqaalkii intaan u gudagelin, fadlan like saar daawade oo nagu soo biir channelkeena Ducaysana Media, subscribe dhe page-keena Ducaysana Media, like saar oo follow dhe. Ku mahadsanid daawade. kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahayow, meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhowaada channelkeena Ducaysana Media oo alaabaan idinkugu soo gudbinno warbixinno idin xiise geliya, isla mar ahaantaana ku saabsan waxyaabaha markaasi taagan, ha ahaato arrimo bulsho ama siyaasad intuba. Gabadha lagu magacaabo Mrs. Wall ayaa kulan xaflad ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada ka soo jeeda gobollada waqooyi khaasatan Somaliland. Waxa ay ku raaligaleeyeen gabadha laga soo haraantiyey haatan sida xunna loogula soo dhaqmay magaalada Hargeysa ee cariga Somaliland, isla mar ahaantaana halkaasi lagu xiray. Dhalinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in qaarkood iyada ay la mid yihiin, isla mar ahaantaana laga soo masaafuriyey halka, balse loo baahan yahay haatan in ay ka raali noqoto wax walba oo ku soo gaaray magaalada Hargeysa. Waxay sheegeen in dhammaan shacbweynaha Hargeysa ku nool ay fiican yihiin, balse xukuumadda haatan talada haysa ay tahay mid cunsuriyad ah. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada oo hadlaya, isla mar ahaantaana cimaamada ku tuuraya gabadha lagu magacaabo Mrs. Wall. waxaa ka mid ahaa dhalinyaradii meesha lacag isku soo xilqaamtay, una imaadeen isku soo xilqaameen, shaqooyinkoodii hawlahooda u soo baajiyaan inay walaashood raali geliyaan oo madaxa qaadaan. Soomaali waxa ku mahmahda maxaa ana hadhay looma hadlo, intii badnayd waa la hadlay, waa la sheegay, waa la hadlay. waxaan leeyahay walaashay Mrs. Wall, I'm sorry aan kulahay xabiibti, raali noqo. bismillah. Horta qof kastoo miiskan fadhiya masabka iyo maqaamka uu ku fadhiyan ku salaamaya. bacdeen waxa aan iskugu wada nimi dhamaanteen waa inaan gabadhan walaashayna Mrs. Wall najmaynan raali gelino. dadka miiskan fadhiya madashaan ka soo qayb galay waa haldoorkii Somaliland, gobollada doonaan ka soo jeedaan Hargeysa, burcaba ha u badnaato. banaadaan laakiin heegadu weji badan ma laha, weji ay sii dhiganayaan oo ay cid u dhiganayaan hadda ma jirto. hadda waxay ahayd haddii inantaa haweeneyda ah gabadha dhan ee la dheerahay habargibirta hadda inuu si un inay kaga xishoodaan bay ahayd markii koowaad iyo markii labaadba. hadda laakiin cidna weji uma dhigano, hablo iyo wiilal iyo gabdho jooga halkan oo halkaa ka soo jeeda. way iska caadi qofku weliba inkastoo ay adag tahay ama ay foolxumo tahay, anigaygana markaan doonaya inaan Muqdisho tago ama Garowe tago ama aan Jigjiga tago ama aan dhul Soomaaliyadan tago, way adag tahay marka laygu dhaho meeshan ka noqo oo ka laabo. waxaa jirta hadda ka hore waxaa jirtay iska daa wax kale, anoo Hargeysa jooga barnaamij film baan ku duubinay berberiya Hargeysa inta isku jiraan wada aragtaa. hadda habeenkiiba meesha inta weliba askartii iyo taliyihii anigu nidaamkan garanayo inta ka fasax qaatay ahad hal mar kaliya niman nigsiyo shorti kaliya qoryano wata hal mar kaliya anoo meel ku mahadsanid daawashada muuqaalkan. fadlan daawada muuqaalka la garee, ku soo biir channelkeena Ducaysana Media iyo page-keena Ducaysana Media sida aad noola socoto oo aad u daawato xogaha aan baahino. ku mahadsanid daawade, tan iyo kulanti dambe, nabadiina.